waxaan horay u soo sheegnay in Abuubakar al-Baaqilaani uu yimid Ruum isaga oo safiir ka ah dalkiisa, iyo in boqorka Roomaanka iyo Abuubakar al-Baaqilaani dhex martay doodo fara badan. Doodahaas oo ay ku tilmaameen taariikhyahanadu in ay ahaayeen doodo Alle ku koryeelay diinta Islaamka. Haddaba arrinka la yaabka leh ee dhacay waxa uu ahaa in boqorka Roomaanku uu u yeeray Abuubakar al-Baaqilaani maalintii uu tegayey waddankiisa si uu u maamuuso una sagootiyo. Maalintaasna waxa ay ahayd maalin ciid u ah Roomaanka. soo dhowow qaadiga muslimiintow. waan dhowahay boqorka Roomaankow, waa ikaan aniga oo yeermadaadii soo ajiibay. Maanta waxaan ku barayaa marti aan caadi ahayn, waana marti sharaf iyo qadarin agteena ka mudan. Fadlan ha soo galo hana soo dhowaado Badreeka. yaa faqiih, kani waa hogaamiyaha u sarreeya diinta, waana ilaaliyaha caqiidada. Soo dhowow Badreek, sidee tahay? Carruurtii iyo xaaskiina sidee yihiin? war waa maxay waxaad ku hadlayso? Waxaan ku weydiiyey sidee tahay? Sidee xaaskii iyo carruurtu yihiin? Waxaan u malaynayaa inaad haddaba aad waalatay. oo maxaa khalad ah oo aan ku hadlay? war soo ma ogid in dadkan oo kale aan ka nasahno oo ay ceeb ku tahay in ay carruur iyo xaas yeeshaan. Si fiican ii dhegaysta. Ma waxaa idinla weyn in qof bani'aadam ah ilmo iyo xaas yeesho oo waad ka nasahaysaan? Ilaahina waxaad u tiirinaysaan arrinkaas oo waxaad leedihiin cunug ayuu dhalay. Rayigiinnu ixtiraam daranaa. Shaydaankan sidee dhahnaa? Maxaad ku talinaysaa? wuxuu dan iyo ujeed u socday si degdeg ah ugu samee. Si degdeg ah ha uga baxo dhulkeenna. Haddii uu sii joogo fitno weyn ayaan uga baqayaa diinteenna Masiixiyadda. Sidaas ayuu sameeyey boqorkii. oo waxa uu dedejiyey sagootinta Abuubakar al-Baaqilaani. waxa uuna soo raaciyey maxaabiis u xirneed oo muslimiin ah. waxa uuna raaciyey ciidan amnigooda ilaaliya ilaa ay ka gaaraan dhulkooda. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.